Shalom, shalom, shalom. Walaalahayga quduusiinta ah waa walaashin Samsam oo idin leh shalom. Nabad dusheena ha ahaato walaalahayga aanu ku walaalownay dhiigga Ciise Masiix. Shalom. Waxaan idin wadaa barnaamij la yiraahdo Ciise Masiix muxuu iigu dhintay. Ciise Masiix muxuu iigu dhintay. Haddaba qisadan Ilaah iyo jacaylka uu dunida u qabo waxaynu ku helnay isku talaabta. waxaan aragnaa in Ciise Masiix isagoo raali ka ah uu u dhimanayo adduunka dartiis. waxaan kaloo aragnaa Ciise Masiix oo wax dambi aan galabsan inuu maray ciqaabtii dhimashada dambiilayaasha. markaan eegayno cabsida iyo silaca isku talaabto su'aasha aan isweydiinayno ayaa ah muxuu Ciise u dhintay? muxuu Ciise u xanuunsaday? maxaa loo silciyey? markaan akhrinayno qisadii isku talaabta lagu qodbay Ciise Masiix waxaad isweydiin kartaa muxuu Ciise Masiix sidan iigu sameeyey? muxuu Ciise Masiix sidan iigu sameeyey ayaad isweydiinaysaa. haddaba aynu isla eegno siduu dembigu inooga fogeeyey Ilaahay. tan iyo markii Aadan iyo Xaawa iyagoo ku dhex nool beertii Eden ay ku dhagaadeegeen Ilaahay amarkiisana ay jabiyeen. bini'aadamka waxaa qarribay dembi. waxaanu iska indhatirnay waxa Ilaah doonayo sababtoo ah waxaan ka jeclaysanay inaan samayno waxa aan annagu rabno. waxaan qulubteena u jeedinay xagga waxyaalaha dunida sida inaan nafteena u urursano awood iyo maal si fiicanna uma daryeelno waxa Eebbo ina siiyo. waxa ina mugdiyeeyey dembiyadeenna oo inaga lumiyey waddada keliya ee aan Ilaahay ugu laaban karnay. cadaaladda Ilaahayna waxay u baahan tahay in dembigeenna magdhow laga bixiyo. si kastaba ha ahaatee inkastoo ay jiraan cilado, Ilaahay waa ina jecel yahay oo wuxuu rabaa inaan dib ula midowno isaga. Ciise Masiix oo ah kalaamkii Ilaahay oo jir bini'aadan soo qaatay wuxuu u yimid dhulka si uu u suurtageliyo dib u soo celinta xiriirka tooska ah ee Ilaahay iyo aadanaha. haddaba Ciise Masiix ayaa Ilaahay dib inoola mideeyey oo waqlalkii magdhowga dembigeenna inoo noqday. waqtigii axdigii hore dadka Israa'iil waxay samayn jireen waqlal allabari si ay u bixiyaan deynta dembiyadooda. sharciga Ilaahay wuxuu go'aamiyey noocyada allabariga loo baahan yahay si loo cafiyo dembiyada kala duwan. xoolaha nool badidoodu waa inay ahaadaan xoolo quman oo aan iin lahayn. haddaba axdiga cusub Ciise Masiix oo ah kalaamkii Ilaah oo jir bini'aadan soo qaatay oo aan wax xumaana lahayn ayaa ina dhex yimid. wuxuuna u yimid dhulka inuu dib Ilaahay inoola mideeyo isagoo inoo noqday allabari aan iin lahayn oo naftiisa inoogu bixiyey sababtii magdhowgii dembigeenna. marnaba ma aynu heli karin nolol Ilaahay u dhowaantiisa istaahisha dembiyadeenna aawadiis. sidaas daraaddeed Ciise Masiix wuxuu ku noolaa nolol dembi la'aan ah aawadeena oo haddana wuxuu u dhintay dhimashada xanuunka badan ee dembiyadeennu istaahilaan. Yooxana 3:17 waxay leedahay Ilaah wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaado isaga. markuu naftiisii isku talaabta dusheeda inoogu huray wuxuu markiiba qaaday ciqaabta dembiyadeenna oo dhan. tani waxay isaga ka dhigtay allabarigii ugu dambeeyey oo hal mar ayuu wada qaaday dembigeennii. taasina ay suurto gelisay qancinta dalabaadka cadaaladda Ilaah ee loo baahan yahay. taasi waa sababta aan Ciise ugu yeerno wanka Ilaah. allabarigii isku talaabta lagu qodbay Ciise Masiix waxaa laynagu tusay weynaanta jacaylka Ilaah noo qabo.
iyo siduu dembiyadayada nooga badbaadiyey. Sara kicidda Ciise Masiixna waxaynu ku aragnaa awoodda guusha Ilaah isagoo inoo yeelaya ballanqaadkii nolosha weligeed ah. Haddaba awoodda aan la qiyaasi karin ee Eebbe nimcadiisa. Awoodda aan la qiyaasi karin ee nimcada Eebbe weeyaan marka. Waayo allabarigii Ciise Masiix ee isku tallaabta dusheeda darteed nolosheenu weligeed sidii hore ahaan mayso. Hibada laynoogu deeqay weligeed laynagama qaadi karo. Awooddeeduna ma lumi doonto. Weligeedna way jiri doontaa. Nolosha cusub ee Masiixu ina siiyey waa hadiyadda ugu wanaagsan ee aan weligeed la heli karin oo Ilaahay awoodiisa ku ahaatay. Barakooba.